Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Sky Educational Institute. Marka lagu soo dhawo Sky Educational Institute, maantana waxaa idin soo targalnay cashir aad u xiiso badan oo inaga soo codsadeen ardayda ugu xiran qaar ka mid ah. Maanta waxayna qaadanaynaa topic about water, mowduuc ku saabsan biyaha. Topic about water, mowduuc ku saabsan biyaha ayaynu qaadan doonaa. Hi everybody. Hi qof waliba. I am studying here. Waxaan halkan u taaganahay. I am studying here. waxaan halkan u taaganahay to say something inaan wax ka yiraahdo about water, wax ku saabsan biyaha marka. I am studying here. waxaan halkan u taaganahay to say something inaan wax ka yiraahdo about water, biyaha. Water, biyaha is our life, waa nolosheena. Water, biyaha is our life, waa nolosheena. Every living thing, noole waliba. Every living thing, noole waliba. Every living thing, noole waliba. Needs wuxuu u baahan yahay. Needs wuxuu u baahan yahay water, biyo. Water, biyo. Every living thing, noole waliba. Needs wuxuu u baahan yahay water, biyo. We receive water, biyaha waxaynu ka helnaa. We anagu receive water, waxaan biyaha ka helnaa from the rivers, wabiyada. From the rivers, wabiyada. From the rivers, wabiyada. Lakes, harooyinka. Lakes, harooyinka. Lakes, harooyinka. Wells, ceelasha. Wells, ceelasha. And dams iyo biyo xireenada. Dams, biyo xireenada. Dams, biyo xireenada. And etc iyo wixii la mid ah. And etc iyo wixii la mid ah. Marka la ku celino, everybody qof walba, I am studying here. waxaan halkan u taaganahay to say inaan iraahdo something about wax ku saabsan water, biyaha. Water, biyaha is our life, waa nolosheena. Every living thing, noole waliba. Needs wuxuu u baahan yahay water, biyo. We receive waxaynu ka helnaa water, biyaha from the rivers, wabiyada. Lakes, harooyinka. Wells, biyo xireenada. Wells, ceelasha. Dams, biyo xireenada. And etc iyo wixii la mid ah. We use water, biyaha waxaynu u isticmaalnaa. We anagu use water, waxaan biyaha u isticmaalnaa for drinking, cabida. Cooking, karinta. And washing iyo dhaqida. Okay, we anagu use waxaan u isticmaalnaa water, biyaha for drinking, cabida. Cooking, karinta. And washing iyo dhaqida. Nowadays, maalmahani. Nowadays, maalmahani. The world, adduunku ama dunidu is faced waxay wajahaysaa. Is faced waxay wajahaysaa by water shortage, biyo yari. By water shortage, biyo yari. Therefore, sidaa daraadeed. Therefore, sidaa daraadeed. We must save, waa inaanu badbaadinaa. We anagu must save, waa inaanu badbaadinaa. Our water, biyaheena. Our water, biyaheena. And we must build, waa inaanu dhisnaa. We anagu must build, waa inaanu dhisnaa. Huge water, biyo xoogan. Huge water, biyo xoogan. Huge waa weyn, laakiin weyn hadduu isticmaalayno. Huge water waa biyo xoogan. River, reservoir, keedad in every town, waa inaanu ka dhisnaa biyo xoogan, keedad magaalo waliba markaa. Okay, therefore sidaa daraadeed we must save, waa inaanu badbaadinaa our water, biyaheena. And we must build, waa inaanu ka dhisnaa huge water reservoirs, keedad in every town, magaalo waliba markaa. Okay, intaas ayaan idigu soo talagalnay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.